horta masiibooyinka ugu badan waxa ka jirta waxa soo arkay waxaanu galnay meel yar oo ciyaal reer lagu xiray waxa ku jira 12 jir wax kufsaday wixii igu sii la yaabka badnaa kii ku xigay markaa wareystana 13 jir qof dilay banaankaanu soo baxay 17 jir isaguna lagu sheegay shabaab weeyaan xanuun anaga xaggayga waxaan ka naqaanaa waqooyi markaa joogno waxaan idhaahnaa jadeeco ama habla baas ku dhacdo oo habeenkiina qofka wax la sameeyo waa busta lagu duuduubay dhididka laga keenay xanuunka waa nabaro jirka ka soo baxay maalintii cadceeda la dhigaa qofkaas wiilkaas wuxuu xidhnaa surwaal dabagaab ah banaankaanu taagnaa xanuunka qofkaas ku dhaco wuxuu saameynayaa dhammaan inta xabsiga ku jirta qolkii yaraa wax ku xidhan 50 ama 60 qof baa ku jira xanuunkaas markuu saameeyo marka albaabka laga furo aad galayso kaarboonka ka soo baxaya ayaa xanuun ah والله عظيمنا أنا بين شيء وزارة عافمات كشقة كمال هنا حبسي قدحه ولله سبحانه وتعالى وحول هذا السكون حارستنا نوان ذين حارسنا حالة ده هالكاس كشرتها دي عاوي بريسات ما لقى شيء وحنا سوكو بكرامة نوينا واحد شراء وذيونا الله بيتدبات شراء وصدق سنة حرام قف بودلي دي سبا لقى قاضي وحري حول الله عن يبناك يوسن تاجنين إلهي وقفور الرحيم دنبي مركز قشان بودي توابط كأنه صار نقطة دنبي وين وقلنا أدوك مرة إنه شغلنا دلالك إنه شارك النهاية حتى نكوالا سخرانك وقوم حد جود بكرة مركز أكسعت إنه قلنا وحين كحد جود بينا قف لو حد جود بيا يسوق موادنا وشوقة ديجان كيسدت كسيدح شوقة أيا اللي جو فيها وحيابي كلا يقول لا يابك بدنا وحكم بدا horta waxa la yiri waxba la siyaasadeynaya aniga horta marka koowaad qof anigu aan matalayo oo xabsigaasi shakhsiga gaar oo gubsanahan igu muusan jirin laakiin kitaab baan maray waa markii ugu horeysay kitaabka gacanta saaro maalintii la idaari qowlka ibnu waa wax weyn ninka 114 suuradood beeniyay adiga hadii ay xataa ku saameyn weydo kitaabkaad ku dhaaratay inaad beeniso reer dhan baa ku baaboo ku duma qabri 2 mitir aynu galeynaa daarta cad quruxda badan leh ee lagaaga shaqeynaayo 2 mitir baad ku dambeynaysaa hantidaadii quruxda badnayd ee tabacatay iyo sheegii suudkaaga $5,000 aad banaanka ka soo iibsatay waxa lagaaga tolaya bahal la ilaahdo oo karfantaasi waxa laga yaabaa in aan lacagtaada xataa laga iibine qofka kugu ehel dhow ama saaxiibka kugu dhow marka la karfantii meedku meey qof baa kula soo cararayo ku keenay markaad qabriga gashana laguma weydiin doono anigoo hebel haayo xildhibaan ahaa iyo anigoo hebel haayo intaas awood lahaa waxa lagu weydiinayaa adduunyada maxaad ka soo samaysay maxaad camalkaaga u ahaa adduunyada waa laga tagayaa macna ma lahan ilaahay hal laga boqo dadka masaakiinta ah ee awood lagu takrifalaayo hal la joojiyo waxa rabaa arinta xabsiga oo dadka waawaanayaan ma yahay suga waxa naaqasa qabriga waa la gelayaa waxa rabaa arinta xabsiga marka ku sii socdo gabadh xildhibaan ah jirta gabadha xildhibaanka kulay aniga gaar aqoon gaar inaga ma dhaxayso laakiin waa xaq institution kana kamid ah aan joogay wasiir bay soo martay gabadhaas waa eedeyn ciday doonta ama dambi hageysata ama yaana geysan waa xiranta birmageedii ahaan jirta gabadha marka la arko birmageeda rag geeribu ka xigi jiray gabadhina ilinteeda aynu arag gabadha iska xiran waxay doonta baa ku xidhnaatay ee loo soo fadhiisanin oo ayaan daro in ay iskaga xidhnaato macna daro gabadhaas hadii ay dambiga geysatay anigu kala wiilka dambiga oo ku haystay u xidhantayna waan arkay iyadana waan dhageystay laakiin maxkamad ma yihi waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada sharafta loo gabadhaas marka hore inay banaanka timaado damaanadna ay ku timaado gabadhaas dhiigir baa ku dhacay macaan baa ku dhacay xaaladeeda caafimaad riski bay ku jirtaa kaada waxa laga dhax qaadaa qolkayga yara 40 mitir ee madowga ah war hal isku naxariisto ilaahayna waa inoo naxariisanaya gabadhaas wixii ku soo baxay waxaan diyaar u nahay $100 baa macna dara nagala jarta caafimaadna lagama siiyo waxba nagalama siiyo gabadha hal lagu soo daayo ninkii ajar rabo turkiba waa nigi u jarayna lacagteena ilaahay dirti gabadha hay'adda soo martay hal lagu naxariistaa qaba gabagabadeeda xeer laalinta iyo maxkamadda iyo wasaaradda cadaaladda waa mashada xildhibaane waqti war raalli ah gudoomiye arintan aniga si gaar ah khusaysa maadaama aan ka soo shaqeeyay gabagaba ku hadlay gudoomiye ii dulqaado waxa rabaa cid kasto arintan ay khusayso in loo yeero lagana xisaabtamo anaga shakhsi gaar ah uma lihin laakiin wixii banaanka yaala inaanu keeno oo dadka shacabka ah aanu tusno in loo maqan yahay oo loo joogo oo kursigii laga soo qaatay in lagu shaqeeyo inaan u joognaanu rabnaa
gooyadoo qaraar laga gaarin lama kala kacayo qaraar ha laga gaar ha laga soo saaro ha lala naxsaarto